wararka Shabeelle sida hordhaca barnaamijka aad ku maqlayseen madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wafdi oo hogaaminayo oo shalay gelinkii dambe ka baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Washington ee waddanka Mareykanka halkaas oo madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama uu kala kulmay madaxda wadamada Afrika. madaxweynaha Soomaaliya ayaa durba banaanbaxayaal qabanqaabadooda laga bilaabay gudaha waddanka Mareykanka kuwaas oo looga soo horjeedo madaxweynaha iyadoo qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee ku nool waddanka Mareykanka ay bilaabeen in dacwado ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya ay u gudbiyaan madaxweynaha waddanka Mareykanka iyo xubnaha Koongareeska waddanka Mareykanka. Cabdullaahi Cabdicasiis oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis oo telefoonka caawa aan kula hadlay kana mid ah qabanqaabiyaasha barnaamij jaamacad uu ka qudbayn raba madaxweynaha Soomaaliya oo Minneapolis ku taalo oo goob barnaamij isu bedeshay ayaan telefoonka kula hadlay waxaana wax ka weydiiyay barnaamijyadaasi madaxweynaha ka dhanka ah waqtiga ay dhacayaan iyo sababta ay u qabteen waxa uu ku jawaabay. waxaa arda mudaaraadka u dhacay August 9, 2014 wuxuu bilaabanayaa 4 galabnimo ilaa iyo 11 habeenimo. wuxuu ka dhacayaa magaalada Minneapolis, Minnesota, xarunta jaamacadda University of Minnesota. jaamacaha oo mudaaraadka u dhacay waxaa ka mid ah madaxweynaha Sheekh Maxamuud oo loo doortay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya isla markaasna 4 sano soo socotay oo hadda lagu fadhiyo ka tagtay in uu ka shaqeeyo dib u heshiisiinta. waxaasna uu ku firgaroobay oo wax uu ka qabtay malaha. laba arrimaha dastuurka uu korayo uu ku tuntay. saddex amnigii magaalada Muqdisho oo gacanta ka baxay xildhibaano badan oo dilay xildhibaan. afar arrimaha ku saabsan badda Soomaaliya oo fargelin ku suubiyo oo dowladda dariska ah inuu maartay dhulkii Soomaaliya badda Soomaaliya inuu kiisho. shan hantidii qaranka ama dowladaha siyaasadda ama qaranka oo nuusan. lix dagaalada ka abuuran shabeellada hoose shabeellada dhexe kan xalay dilka Iiraan dhinacaas uu gacan ka geystay oo san ka hadlay arrimahaas oo dhan oo isbiirsaday iyo asoo raba inuu Soomaalida Minnesota joogto Soomaali Amerikaanka ah inuu kala qaybiyo sidii uu Soomaaliya u soo kala qaybiyo midka Soomaaliya ku hay inuu halkaan la yimaado arrimahaas oo dhan oo isbiirsaday iyo asoo ku filgaroobay wixii loo daariyay oo ahaa inuu yahay madaxweyne qaran laakiin uu sameeyay hal jiro uu noqday madaxweyne qaran. intaas arrimood oo taasoo ka loogu mudaaharaad حتى الشيخ محمود حاضر جوله مجال واشنطن إمام دوله تعرف الجماعة Minneapolis Minnesota. waata marka eedeymahan aad soo jeediseen iyo barnaamijkan aad ka dhanka madaxweynaha oo aad Mareykanka ku qabanaysaan koor madaxweynaha inaad la hadashaan oo duldulalada jira aad tusisaan sooma qurux badnaan lahayn. waa su'aal wanaagsan madaxweynaha waa la hadlay qoraalana waa loo qoray xildhibaanaha la hadlay wasiiraha la hadlay odayaal baa la hadlay dumar baa la hadlay qofaan la hadlay malaha qof walba intuu yimaado intuu yidhaahdo xadaanka qabanaya markuu qofkii ka taga ama shaksigu ka taga ama ha ahaado wasiir ama xildhibaan ama dhaqmeed martika buusa qaadayo hawshiisa buu iska wadanaya. marka siro ka badan 17 goor baa loo tagay wax uu ka qabtay arrimihii lagu tagay ma ay jiraan. taas aawadeed annaga waxaan go'aansanay inuusan madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uusan ahayn madaxweyne qaran uu yahay madaxweyne qabiil oo xaggana waddanka Mareykanka jooga intuusan maalin ka horan waxaan qoraal u gudbinay dowladda Mareykanka oo ugu sarreeya madaxweynaha Mareykanka Koongareeska Senatka maayarada gobornadka waxaan geeyay oo maaragtay alleena ninkan wuxuu wadaa inuu Soomaaliya community of Minneapolis inuu kala qaybiyo. taas daraadeed annaga inaan aragno marabno inuu noo yimaado marabno aragtidiisana ma doonayno hadduu yimaadona waa lagu mudaaharaaya. waddanka waa free speech qofka haddii lagu mudaaharaadana waxaa qofkaas waa qof maaragtay damage weyn soo gaaray. marka qoraalada madaxweynaha Mareykanka iyo xubnaha dowladda Mareykanka aad u gudbiseen madaxweynaha Soomaaliya ka dhanka maxay noo sheegi kartaa. waxaa ka mid ah inta hadda soo sheego asoo dastuurka ku tuntay xasuuqa bacaan ay ka taagan Soomaaliya hubkii dowladda la siiyey oo loo adeegsanayo dadka masaakiinta shabeellada hoose shabeellada Iiraan iyo xildhibaanada waddanka joogo oo hubkaas lagu baabi'inayo ayagoo dadkii ay qabaan dareenka dowladda inuusan waddanka amni ka jirin inuusan waddanka waxba ka qabanayn arrimahaas dhan u gudbinay waynay ka warhayaan waana la socdaan. marka madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda kale u gudbiseen qoraalada maxay idinku jawaabeen oo jawaab ka hesheen. waxaan ugu soo jawaabay ilgaar baan ku haynaa waana la socdaa.